مقال مجرى بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan filayaa inay maqashaan haday maqashaan ha soo qora. Okay. waxaan rabnaa inaan ka hadalno maanta wasiirka warfaafinta ama wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha. wasaarad qoto dheer waaye oo soo jireen ah oo dad leegan ah ama bulshada magac ku leh wax qabtay ay ka soo shaqeeyeen. inta aan ka xasuusto wasiiro badana soo maray wasaaradda warfaafinta, qaarkood way ku soo laba naqdeen, qaarna waa loo darsaday oo tegitaankoodii dadka culays ay ku noqotay, qaarna waa lagu darsaday oo imaanshahooda dhib noqotay. inta aan xasuusto wasaaradda warfaafinta waxaa soo maray wasiir fiqi, waxaa soo maray wasiir ibi, waxaa soo maray wasiir ciilmooge, waxaa soo maray doctor daahir geele oo 2 jeer ku soo noqday wasaaradda, waxaa soo maray xildhibaan Mustaf Dhuxulo maareeya 2 jeer ku soo noqday asigana. intaas inta ka dambeysana wasaaradda warfaafinta shaqay haysay oo bulshada ay u haysay. waxaa aad u xasuustaa runtii wasiir daahir geele in wasaaradda looga darsaday markii ugu horeysay oo wasiir noqday uu ka tagay. xildhibaan Mustaf Dhuxulona sidoo kale intoola dadka ee wasaaradda u darsatay oo kamid ahaa, laakiin wixii ka dambeeyay wasaaraddu waxay noqotay goob marqaan iyo goob ciyaalo suuq. marabno qof shakhsi inaan ku xadgudubno, laakiin wasaaradda ma noqonin maxaa la yiraahdaa ii sheeg wasaarad ka soo baxday shaqada loogu talagalay, ama ha noqoto dhanka baraarujinta fanka iyo suugaanta hobolada waa beri laftirkooda wasaaradda ka tirsan, ama ha noqdaano maxaa la yiraahdaa barnaamijyada iyo wasaaradda shaqadeeda. wasiir maareeye wuxuu ka mid yahay wasiirada 2 jeer ku soo noqday wasaaradda. marka uu imaadane isbedel badanaa wasaaradda imaaday, dad shaqadooda gudanayo oo shaqo fiican haya boosaska laga bixiyey, dad aan shaqo aqoonin oo famil ahaan iyo xigtanimo loo keenane wasaaradda waa la keenay oo ilaa iyo maanta ay ka shaqeeyaan, dad aan aqoonin maxaa la yiraahdaa ii sheeg magacooda sida loo qoro. injineer cabdiraxmaan yariisow wasaaradda xilliguu soo marayay waxay ahayd marxalad adag. already way shaqaynaysa wasaaradda, wayna diyaarsaneed. yariisow wasiirnimada ka sukow allah u naxariista wuxuu ahaa nin wariye ah, xirfadle ah, saxaafadda muddo ku soo jiray, yaqaano sida loola falgalo maxaa la yiraahdaa ii sheeg saxafiyiinta. wasaaradda horey u martay, seminaaro badan la sameeyey, runtii dad shaqada yaqaano aan loo dhiibay boosaska ay mudan yihiin, sida agaasimaha marka loo magacaabay radio muqdisho cabdiraxmaan cabdifataax daahir jeete oo cabdi jeete ee Soomaalida u taqaano. runtii nin shaqo yaqaan ah wasaaradda meel fiican gaarsiiyey, barnaamijyo qurux badan ku soo kordhiyey inta uu meesha joogay. iyo liibaan cabdi cali oo aan ogsoonahay xilligii uu meesha imaaday iyo meesha uu ka soo maray. barnaamijkan qadka taleefanka idin furaynaa, waxaan rajeynaa insha Allah in ma aragtay gabdhaha Soomaaliyeed ay ka qayb qaadan doonaan gafkii. waxaan usoo laabanaynaa marka wasiirka ka dhacay. horta waxaa qalad ah in wasaarad ka mid ah wasaaradaha Soomaaliya wasiirkeedii warqad noocaas intay xafiiskiisa soo marto u ogolaado. wallaahi uqsimu billaahi alcadiim inaan been idiin sheegeen. gabara isoo wacday
markaasay igu tiri cabdicasiis adiga hadalkaaga meel gaara calagal oo aniga iga fiican maanta su-aalna waa rabaa inaan ku weydiiyo maadaama barnaamijkan aad soo galaysid wasiir maareeye gabadhiisa hadday shaqo doonato oo xafiis ay tagto uu sharuudahan gabdhaha soomaaliyeed ku xiray ilaahan kugu dhaarsho ma kula tahay shaqadaas inay heli lahayd wasiir maareeye sawirkiisa si fiican u fiiriyey subxaana aladii khalaqa abuurista ilaahay la yaab ma lahan qofka rabo awoodda ilaahay inuu arkana horta abuuristiisa inuu fiiriyo waayo maanta ma ahayn wasiirka inuu qurux ka hadlo qurux inuu maanta wasiirka ka hadlo ma ahayn duqabkooga wuxuu dhihi jiray faqaya dad waanshay naftiisana ma waansano oo loola jeedo qofka wax waaninayo asigiya qaladaadka iyo mushkiladaha ku jiro horta ilaah subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa dad isla weyn ama kibir badan ama yani gaf uu ka dhaco inuusan ilaahay naga dhigin gabdhahan fursad siinaynaa waxaan diyaar u nahay sharafta gabdhaha inaan difaacno kolley qofaa isoo wacay dumar ah waxaan isku dayaynaa marka inaan fursad siino ayagoo waqtiga soo koobayo raalli noqda marka maxaa la yirahdaa ii sheeg fursadda aan ka wada faa'iidaysano alo asalaamu calaykum waxaan umaleynaa in lagu maqlaayo laakiin waxaa isku dayaa sameecad kaleento halkan taalo inaan kuga xiriiriyo si maxaa la yirahdaa ii sheeg cod awood le dadka ay u helaan barnaamijkane waxaan jeclaan lahayn inuu noqdo barnaamij wax kooban looga hadlo oo ma aragtay muhiimadiisa ay noqoto in sharafka gabdhaha lagu difaaco marka soo dhawo bluetoothkan isku daya inaan ku xiro caasho haye hore uu soco waa lagu maqlaa saan qiyaasaya والله برنامجكان ما شاء السلام يا أدي أنت كوجو حرمبا haye وحادي عاد وحنا برنامج كرت إن ما أنت لقى هذا أو كسبسن وزير كان لما ورفافت الدولة لما أنت تبكي شعبك سوماليات وذا في سنة أيام ترى وحنا ما أنت توسو استوى أقل حماء أما وحنا قرحانين وضاوعي قبلي سوماليات أما هو يويك سوماليات أما أبويك سوماليات ضاوعي إنه أنتم ملسو استوى هذا أصير بلغت وزير ماري إن يرى الله كفتمي أصير مرايد إنه بسكو في رياضة في عنالة أصير قبل ديسة بعد الشقاء ده أركنا النوع عاس أقول لي هذا روح على سوق هذا نحتلو محيط دريمي لهذا مركي إنه هرت وحياة بدن ودريمه ويرى هذا بالأري هرت ساوي إيكا هبيات بدن عني إيكا قبل ما عنقلين لكن أدوك روحو كلو أو اللوبي حتى دتك ميديا أدوك وقع لسلسلة ليري كينج عمل أوبرا عمل معناه قروح ما لكن مسكح إن وحلين إن شعبك وحجارسيات سومالي وحنا حسوستا الله نحرستي برنامج كعونك مركو سو غلاي او كلا مورك مركو شيغاي سيد برنامج كعيارها كولومبو مركو سو غلاي معناه دد قالي او ان معناه لا قياسي كرين او ما شاء الله تي في غان قال كشقين جدا ادونك ما انت كشقيان معناه قفك بني ادمك waxa lagu qaat lagu ma qaato qurux laakiin waxa lagu qaataa inuu qofka 5 second uu dadku wax ka gadi karo cod kariyahay maskaxdiisa caafimaad qabto waxyaabo badan ay jiraan markii inuu la soo istaago 25 jir sida nin macnaa suuqa modelka oo kale waxba ama dhar la xayeysiinayo ama xayeysiin laga shaqeynayo waa run maanta meedii wuu isbedel sida Soomaaliya shan markii dagaalka aysan dhicin koor aysan ahayn waxa laga yaabaa hadda in make up loo mariyo xataa ragga loo mariyo wiilka loo mariyo style-ka laga saxo nin rifan meesha la soo fikirsinay waa sax waxyaabo badan oo protocol ah way jiraan laakiin inuu media la soo istaagay gabar 25 jir ah oo maxaa dhahay ii sheeg Cabdicasiis ma leh maqlaa aada lagu maqlaa ku soco gabar 25 jir ah macnaa xataa qof walba dareenkiisa isla markuu soo jeesana muxuu ka wadaa sababtoo gabadha 30 jirtay gabadha 25 jirtay waa isku macno gabadha 40 jirtay gabadha 25 jirtay waa isku macno gabadha waxaa muhiim ah qofka inuu active yahay inuu dalkan iyo dadkan u shaqeyn karo ka soo bixi karo shaqadiisa inuu karti iyo hufnaan leeyahay dabcan codka waa la isku qaataa qofku waa inuu cod leeyahay oo markuu warka sheegayo in saxaafaddu waxay u baahan tahay in codka la miisaamo ama la qiimeeyo oo loo sameeyo guddi laakiin inuu yiraahdo gabar 25 jir sida nin gabdho gadgadaayo oo kale dowladda Soomaaliyeed qofkii ra'iisul wasaarihi soo doortay marada ka dhacday asigana golihii wasiirada maradu ka riday baarlamaankii dhamaa wuu ceebay marka waxaa dhihi lahaa baarlamaanka oo dhan ha ka soo hadlaa
wasiiradu ha ka soo hadlaan dowladda ha ka soo armaareeya shalay kii dhahay waa cabdiraxmaan cabdishakuur qaladoo sameeyey apologize sameeyey maanta asaa qalad samaynaya marka waranka lama tuuro xataa dib adig kugu soo laabanaya asigaa toroba qalad noqday asigaa ceebaysan asigaa maanta gabdhaha soomaaliyeed u gafay shalay haddii uu ka hadlaya gabdho loo gafay maanta asaa gabdhaha u gafay wasiir maareeyo waxaan ka codsanaynaa inuu si heer maxaa dhahay ishig loo wada jeedo oo tviyada uu soo fadhiisto oo heer cod iyo weji ahba inuu gabdhihii soomaaliyeed aniga aan ka mid ahay uu apologize na siiyo waana mahadsantahay cabdicasiis barnaamijka ay iga qaybgeliso walaalka okay caasho cagoole aadan kuu salaama laakiin waxaan jeclaan lahaa intaa barnaamijka ka bixin waddanka aad joogtid haddii arrintan ay ka dhici lahayd sidee bay noqon lahayd wallaahi shaqadana waa laga casili lahaa maxkamadna waa la saari lahaa ayadoo sababto arrintaan oo kale waxay dhahaan danishka waxay dhahaan moblin ay dhahaan waxaa waaye cuqdad nafsi shacab dad dhan ah cuqdad nafsi ku riday qofka waxaa laga yaabaa inay gabadha hilib leedahay waxaa laga yaabaa in qofka cilad macnaha ilaahay farsamadiisa way badan tahay dadka noocyo badan macnaha meelaha shaqada oo kale qof asluub xumadaas kuma soo kor karo sharcigana ma ogolo in dadka aad ku samaysid niyad jab iyo yasid oo dadka aad kala socdid quruxda iyo foolxumada ilaahay subxaana watacaala ha abuuray waa qofka bani aadamnimada in la ilaaliyo xuquuqda bani aadamka in la ilaaliyo waa muhiim qofka qalbiga inaan laga dhaawicin waa muhiim gabdhaha soomaaliyeed ay wada siman yihiinna waa muhiim marka aad iyo aad u adagta arrintaan oo kale waa arrinta maxkamadaha lagu saaro oo laga qaado weliba maxaa dhahay isheg staten ama maxaa dhahay isheg maka looga qaado aada u mahadsan tahay caasho cagoole inuu kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga ah waxaan jeclaan lahayn aada u mahadsan tahay waxaan jeclaan lahayn marka aadna waa kuu salaamaya adiga iyo inta kugu xiran hay aada u mahadsan tahay caasho waxaan jeclaan lahayn bal inaan fiirino saxaafadda maxay ka qabtaa horta wariyaal soomaaliyeeda ka qayb galo idaacadaha caalamka maxaa la yirahdaa kuwa soomaaliyeed qaarkood waxay usoo shaqeeyaan laftirkooda wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha laftirkeeda wasaaradda laftirkeeda usoo shaqeeyaan maxay ka qabaan gabdhihii ugu horeeyey oo aan ogsoonahay inay maaragtay wasaaradda ka shaqeynayeen waxaa ka mid ah shukri afrax oo kaleentoole waxaa ka mid ah maxaa la yirahdaa isheeg wasiiradeena sahrakiin oo hadda wasiir ku-xigeenka haweenka maxaa la yirahdaa puntland ah waxaan hubaa inay ka dhiidhi lahaayeen waxaa qadka ku jiro cabdirasaaq cali ama cabdirasaaq suuley oo ah wariye runtii ka howlgalay warbaahin badan cabdirasaaq soo dhawow وعليك السلام عبد الرزاق soo dhawow cabdicasiis masha cabdirasaaq waa lagu maqlaa soo dhawow barnaamijka hore u gal haddii aana maqashid assalaamu calaykum وعليك السلام ورحمة الله mana maqashaa adiga cabdirasaaq waxaan maleynaa cabdirasaaq inuusanna maqlaynin waxaan isku dayaynaa inaan mar labaad ku celino maadaama asiga uuna soo wacay oo maaragtay maxaa la yirahdaa uuna maqli waayo waa ku celinaynaa fursadda okay anaga ku celinayna marka السلام عليكم عبد الرزاق واي مقشة سوما assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله soo dhawow عبد الرزاق ma lay maqlaa marka ugu horeysa ها waa lagu maqlaa adiga haddaana maqashid waa tahay anigu codkiina ma maqlo laakiin insha allah waxaan rajeynayaa inaan uga qayb galo sidaan ahay marka ugu horeysa magacaygu waa cabdirasaaq suuli cali waxaan ahay runtii wariye kamid a wariyaasha soomaaliyeed ee ku nool wadanka ingiriiska gaar ahaan magaalada london intaa ka bacdi ummadda soomaaliyeed guud ahaan waa wada salaamaya dhammaan meel walbo caalamka ay ka joogaan waxaa xiga cabdicasiis maxamed kulmiye adigana runtii barnaamijyadaada quality-ga leh isla markaasna maxaad mar walba taagan
aad qayb uga noqoto ummadda la wadaagtana ayadan sidoo kale waa mahadinaya oo kaaga mahadcelinaya haddii aan intaa kasoo gudbo runtii arrintan hadda taagan oo maareeye ka warfaafinta dowladda soomaaliya ama wasaaradda warfaafinta runtii abdulaatin saaw oo kacsan waa arrin kacusay gaar ahaan waxay runtii mahaddo ku noqotay hablaha soomaaliyeed meel walba caalamka ka joogaan dee kolley warqadihii dokumentiga ahayd ee soo baxdana waa la arkay wasaadi screen runtii way jirtaa qaabab loo kala xulo dadka laakiin waa goorma waa marka la doonayo qolo walbaa waxa ay tahay in lagu xusho masalan qofka markuu sportska oo kale marka la rabo sportska weliba qaybta basketka oo kale markaad rabto qof inaad u xulato waxaad xulan kartaa qof dheer oo xoogan laakiin qurux iyo midab iyo midna kuma xulan kartid xitaa da'da waxaa waaye macno gaara ma lahan waa la ogyahay from ageka ilaa macnaha ageka ugu dambeeyo sportigu ku wanaagsan yahay haddaan usoo laabtay dumarka qaabka loo dhigay documentiga iyo sida loo kala qaaday ama hanaanka qofka uu samaysan yahay ha noqoto ama ishka ha noqoto waxaa dhihi karaa xoogaa description ama xoogaa midabta koorku dadka qaar ayay noqonaysaa labada gabdhood oo wada dhalatay baa midna bilicdeedu iyo maxaanku yidhahdaa istaraatiijiyadeedu ay qurxoon tahay qaabka istaagkeeda uu yahay midna iyadoo ka xirfad badan ka codkarsan uga wanaagsan dhinac walbaba dabcan xitaa laga yaabo inay aqoonta dhinaceedana ay uga sarrayso ayaa waxaa laga yaabaa in arrintaani qodobkan isaga ah oo qabanayo marka wasiirku runtii arrintaas waxaan isleeyahay hablaha soomaaliyeed oo ah birimageydadii soomaaliyeed oo ah hooyadii ummadda soomaaliyeed oo ah tii dhulka lagu tilmaamayey oo ah tii ummadda lagu tilmaamayo luuqadii hooyo oo muxuu ahaayey raggi u dhaqmayey oo raggii la dhashay oo muxuu ahaayey haddee aan garan karna qiimaha ummadda soomaaliyeed ay ku leeyihiin aad baan uga xumahay xoogaa in maaragtay sidaa loo dhigo oo muxuu ahaayey niyad jabka noocaas ah ay ku dhacdo waxaadna ka dareemi kartaa inay runtii si xun ay ku tahay ama markaasi ay runtii mahadho ay ku noqonayso walaaca ay ka keeneen qaababka ay uga fal celiyeen afar saaco lasoo dhaafay mediaha siduu ka ahaa arrin wanaagsanna maaha marka waxaan isleeyahay weli fursad baa micnaha taalla wasaaraddu way ka faa'iidaysan kartaa waqtigu intuusan sii dheeraan inay ka bixiso raaligelin runtii aada u fog kasoo hoyatay wixii kale ah marxuma waa la dhihi karaa qofkan aqoontiisa ayaa lagu xulanayaa nacam waa in wasiirada lagu xushaa xildhibaanada lagu xushaa siyaasiyiinta o dhan lagu xushaa qofka aqoontiisa waad ku xulan kartaa qofka xirfadiisa kale waad ku xulan kartaa laakiin midab iyo age xoogaa waxaan isdhihi karaa xoogaa waa arrin cajiib hadda anagu saxaafadda markaan ku jirno waxaa saxaafadda lagu soo baleeyey markay ugu yaraato rag 30 sano naga weyn ragga ku jira oo ka shaqeeya ama tvda ha noqoto ama bbc da ha noqoto ama haddaba qaarkood retired ka noqday xadadka la joogo rag iyo dumarba ha noqdaan waxaan dareemi karnaa qaarkood over 60 70 inay yihiin marka anigu hadda wasaaradda systemkan cusub oo hadda ay ageka from that to that ay ku xulayso ma aqaano ragga markay dhaqanka rabaan inay wax dhalaan ay guursadaan waxay ku xulan jireen qof da'yar oo muxuu ahaay yani ku dhaqmay aad iyo aad wasaarad shaqadeeda iyo muxuu ahaayey xirfad qof uu leeyahay iyo mas-uuliyad dowladeed oo muxuu ahaayey qofkii maanta kusoo biirahay shaqadiisa keliya inay guto keliya waajib uu ka saaran yahay laakiin midabkiisa aysan shuqul ku lahayn dhirkiisa aysan shuqul ku lahayn xoogaa in sidaa loo kala dhigdhigahay xoogaa ceeb bay la tahay marka wasiirkeena maareeya arrintaas ayada runtii aad buu ugu qaldan yahay dumarka keliyana ma qusaysay waxay qusaysaa ummadda soomaaliyeed oo dhan inay arrintan ayada ka hadlaan waan ka xunnahay wax u qaadno maaha hablaha soomaaliyeed mid alla midii aqoonteeda hadday caddahay hadday gaaban tahay hadday madowdahay hadday dheer tahay wasaaraddu waa wasaaradii dowladda federaalka wasaaraddu xaq bay leedahay qof walba inay soo dhaweyso qofna midab lagu mariixo qofna dhirir iyo aqoon lagu mariixo qofna qurux iyo muxuu ahaaye lagu mariixo hadda aqoontuna waa meesheeda marka insha allah arrintaas waxaan leeyahay lama qabno wasiirka waana kaga soo horjeednaa waana ka xunnahay hablaha soomaaliyeedna
haddii gafafka soo gaaray oo isugu jira noocyaha fara badan bay kamid tahay waxaan jeclahay inay macnaha ay arrintaas ayadaa raalli ka noqdaan marka koowaad maasaadkayga marka labaadna wasiirku haddii gafka isagaa geysta dowladdu ayadaa laga doonaya inay markaasi jawaab ka bixiso insha allah okay cabdirasaaq aada u mahadsan tahay waqtigaaga qaaligana waa kaaga mahad celinaa brotherkeyga waa mahadsantihiin kaas wuxuu ahaa cabdirasaaq runtii oo nin wariye maxaa la yirahdaa xirfadla isla markaana si cilmiyeysan maxaa la yirahdaa u galay waxaad dareemaysaa codkaaga ma maqlo cabdicasiis walaalkiis codkaaga ma maqlo okay waxaad dareemaysaa marka 50 qofoodaa fiirsanaysa barnaamijyadeeda markay aan soo galo 200 iyo 300 fiirsan jirta dumarka ayaga isliidayaba oo aan rabin xaquuqdooda inay raadiyaan waxaan wasiir maaraya ka raadinaa oo anaga ugu danaanina marka konton ay fiirsanaysa marka horena commentiyadaan isku dagaali jireen markaas ay waxay dhihi jireen qabiil hebel asaana laakiin anaga waajibkana saaran markasta inaan hadalno oo aan dumarka xaquuqdooda raadino dhibka lagu hayna aan ka hadalno waaye waajib muqadas inaan gudanayna taas oo arkaa waana gudanayna haduu ilaa yiraahdo waxaan jeclaan lahaa marka gabdhaha mar walbo inaan fursada siino gabar waxaa jirto maxaa la yiraahdaa ayadana sidoo kale maanta oo dhan soo wiceysay haday suurtagal noqoto waa soo gali doonaa barnaamijka marka waxaan rabaa inaan u soo laabto wasaaradda warfaafinta wasaarad dowladeed waaye shaqada ay qabanaysana waa inay shacabka u qabataa baraarujisaa wacyigelisaa fartaa wanaagga iyo wadaniyadda waxay tahay horta waxaan ku sugaynaa wasiirka inuu jawaab ka bixiyo ama uu ka hadlo qoraalka xafiiskiisa ka soo baxay ma aqaano madaxa shaqada iyo shaqaalaha inuu yahay waxaa la sheegaya websitekiisa qaaska ama whatsappkiisa inuu meesha maxaa la yiraahdaa ii sheeg uu ku qoran yahay hadduu amarka fil Soomaaliya ka yimid oo madaxda Soomaaliyeed gabar noocaas ay dalbadeen oo marka ay qayilayaan oo kabanka loo tumaayo inay hor socoto ay rabaan Maarey Cabdul Maamuur waaye oo adoon la adeejiyo waayo sayidkaaga markuu ku adeejiyane hawsha uu ku diray waa ina qabataa wasaaradda waxyaabo badan laga sheegayo xurumaha dawladda bil ka hor gabara muuqaal soo duubtay oo dhahayso nin agaasime oo shaqan ku siina iriya inta taabsaday jirki inta iga qabto yiri waxa kaliya uu ku baahi bixi kartid inaan kugu baashaalo waay hadda adiga kugu baashaaleynin shaqo ma helaysid xitaa qaybo dawladda kamida iyo wasiirada xildhibaana gabadha muuqaal hadalkeeda soo bandhigay wala muuqaalkeeda la qariyay markii dambana waxa la sheegay gabadhi in ay shaqo heshay ayadoo jirkeeda aan ku bedelanin taas waxay ku cadeynaysaa marka fiqsiga iyo fasahaada iyo edeb darada in ay ka jirto in xarumaha dawladda oo dhan awal shay dadka Soomaaliyeed waxa la jiray dad dhaqanka iyo diinta ilaaliyo waay laakiin marka fiiris hadda siday wax u socdaan ama lagaaga sheekeeyo hoteelada magaalada Muqdisho waxa ka jiro waxa ogaanaysaa dhaqankii iyo diinta iyo sharafkiiba in la gatay ma rabo xumaan inaan barnaamijkayga ku faafiyo oo aan dad waxyaabo ay u soo jeedin ku soo jeediyo laakiin Muqdisho waxa laga sheegay gabdho iskooley oo buugaagta iskoolka wato hoteelo galayo ilaahan ka magan galnay wax fiicanna ma ahan in qof raga uu maqlo ama gabadhiisa ama walaashiis hotel sii galeysay laakiin mar hadayba noqotoba xaruntii dawladda oo wasaaradii warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha in ma aragtay gabar yani hubqaad leh ama xabad fiican iyo jaabab fiican leh macnaha luqadda waxaan ka dhigaynaa luqadda ciyaalka xaafadda marabno ilmo 18 sano ka yar laga yaabaa inayna fiirsanayaan inay maaragtay waxyaabaha qaarkood afkeena ka maqlaan
gabar jawaab khatara leh iyo bistoolayaal iyo taayaro fiican la raadinaa macnaha wasaaradda. gabadhan intay mis fariisato may war akhrinaysaa mase waxay ka qayb gelaysaa bandhig dharka lagu xayeysiiyeynayo. waxaad dareemaysaa marka laga soo biloobo madaxweynaha ilaa iyo qofka ugu hooseeya dowladda ciyaal suuqiin inay yihiin dhammaan. ay jecel yihiin inay tuntaan, ay jecel yihiin cirdiga iyo sharafka dadka inay ku xadgudbaan. maxaa yeelay dowladda jawaab kama bixinin, kama hadlin, xeer ilaaliyaha kama hadlin, ra-iisul wasaaraha kama hadlin, madaxweynaha kama hadlin, guddiga shaqada iyo shaqaalaha kama hadlin, wasiirkii laftirkiisa raaligelin ma ka bixinin. annaga dadkeena social media jooga markaan qaylinay waraaqadiyaa laga bixiyey, waraaqad kaleentaa lagu soo bedelay oo la leeyahay min 20 sano ilaa iyo 25 sano. wax kale intoo isbedela ma jiraan. gabdhihii barnaamijka ka hadlay iyo kuwo badanoo bartooda ku soo qoray aaday uga dhiidhiyaan. waxay yidhahdeen wasiir meesha naagamaa lagu gadaayaa mase qofka aqoonta uu bartay iyo xirfadiisa aa lagu shaqaalaysiina. haddii qurux la isku shaqaalaysiinayo wariyayaasha nimanka iyo naagaha telefishinka ka shaqeeyo dhammaantood ma wada qurxan, waa wada foolxun yihiin. 2 qofood iyo 3 qofood marka laga reebo ma qurxano. qurux soo ma raadinaysaan? wasiir qurxan hala keeno wasaaradda warfaafinta oo aad u qurux badan. maareeye xitaa Soomaali uma eko. ma rabno oonka iyo qalqiga ilaahay inaan ku xadgudubno, laakiin horta wasiirka saaxiibkay Brussels iskugu keen horeysay markii aan arka madaxweynuhu la socday. halkaanaan ku kulanay magaaladan maxaa la yidhahdaa Brussels. waxaan u malaynaa sawir aan iskula jirno inaan haayo. okay ikaadi marka saaxiibkay maaree waxaan u malaynaa sawir iskula jirno inaan haayo. waxaan isku dayeynaa marka bal inaan fiirino wasiirka laftirkiisa ehel ma u yahay wasaaradda warfaafinta inuu ka shaqeeyo oo qurux lagu qaato. ma aqaano dadweynaha waxa ay ka dhihi doonaan, laakiin wasiirka hadduu ehel u noqdo in qurux lagu qaato waa soo dhaweyneynaa. waan jeclaan lahaa sawirka wasiirka oo dhammaystiran inaan helo. wasiir maareeye waa kaasaha dad badanaa laga yaabaa wasiir maareeye inay maqleen laakiin magaciisa ayna aqoonin. ma qurxan yahay wasiirka oo ma dhihi karnaa maxaa la yidhahdaa waa u qalmaa wasaaradda warfaafinta inuu ka shaqeeyo. an waxaan aaminsanahay qofka ilaah subxaana wa tacaala abuuray 6diisa 6aad kaamil ay tahay inuusan qurux u baahnayn. because dadnimada iyo quruxda aniga agteeda labay ka kala tahay. meeqaa qurxan oo tanag ah oo aan waxba gelin oo liito oo aan karti iyo dadnimo lahayn. muhiim ma ahan quruxda, dadnimada muhiim ah. qofka subxaana wa tacaala allihii qalqay inuu ka cabsanayo, uu 5tiisa salaadood tukanayo, oo addoon wixii loo abuuray og inuu yahay aniga aan aaminsanahay. aniga qofka qalbi wanaagiisaan ku qaataa, qurux kuma qaato. micnana ma samaynayso quruxda. ilaahay qofku iskugu daray quruxda iyo caqliga iyo hibada hadalkani wax ka sii fiican waay. ana haddii la yiraahdo ka waran wadanka Belgiumka aan jooga ma qurxanid, wadanka ma ku noolaan kartid. seen u noolaana inaan noolaadaan rabaaye. ilaaha saan iga dhigay aniga inaan saan noqdo ma dooranine. sidee dadka aan ula ceesha naagtaa shukaasada markay tiraahdo war kulmiye ma qurxanid hore u soco intee ka bilooba aniga. wasiirka marka amuuraha ilaahay inuu
يعني faragashada ma ahan waxaan ka wadaa toos ugama hadlin wasiirka laakiin si dadbanu uga hadlay markuu yiraahdo gabar qurxan oo stage istaagi karto macnaha waxaan ka wadnaa xabadka iyo astaghfirullah alazim iyo meelaha kale inta dhan qof ka diyaarsan oo ka dhisan oo hubqaad leh macnaha jeebab qatar leh gabdho badan arkay saaki akayaal ayagoo wataan isku soo sawireen dhaheen maxaa laga wadaa in hubqaadista saan ma laga wadaa hubqaadista saan ma laga wado waxa ka soo dhaweed oo kaliya inuu yiraahdo 3D iyo 3X inay xiranayso waay macnaha dumarka fahmay washaas ayaga u deynayna oo seeska sheego macnaha intaas ka dhineed wasiirka aniga cadaaladda la jirnaa wasiir Maray waligiis waxba iima dhimin waxba igama halaynin wax uu ii dhimay ma lahan laakiin cadaaladda la jirnaayo sharafka dumarka sharafkeena waay gabadha shaqada doonanayso gabadheeday noqonaysaa beritoole ma rabi marka gabdhaha kaleentoole wax aan la rabin inaan gabadheeda la raboodo waxaan jeclahay barnaamijka dadka inaan qadka u furo qofa nagu soo biiray alo salaam alaykum alayhi salaam farxiyo maxamed soo dhawow halkee joogtaa mana maqashaa okay farxiyo wuu ka go'ay waa rajeynaa inay maaragtay in ku soo laaban doonto marka gabdhaha iyagaa laga rabaa sharaftooda inay difaacdaan caasho hadday waxay ka hadashay Oprah Winfrey barnaamijyada aad u qurux badan ay soo jeedin jirtay barnaamijka oo loogu daawasho badan yahay America noqday barnaamijkay soo jeedin jirtay Oprah gabar Soomaali ma ahayn Kenya ma ahayn Ethiopian ma ahayn American ay ahayd oo madow maxaa la yiraahdaa ii sheeg aan qurux lagu tilmaami karin laakiin aqoon leh activist ah isla markaana xaquuqda dadka madow u doodo dad badan laga yaabaa maxaa la yiraahdaa inay aad u dhibto in gabdhaha Soomaaliyeed la difaaco ama arinkooda laga hadlo laakiin waxaan rajeynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu wixii dambi naga cafiyo anaga laftirkeena marabna khaladaad inaan ku dhacno mana ka heebeysanayno cid inaan gabdhaheena sharaftooda difaacno wasiir Maray magaalada Muqdisho waa u soo shaqo tagiyay briiskiisa ha raadsado oo shaqadiisa ku ekaado marka xadgudub sameeysid waxa iimaanayso in laguga xadgudbo alo salaam alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh brotherkeygi soo dhawow waa dhawaa walaalkay waa dhawaay oo kuma santahay barnaamijka aad iga qayb gelisay galabta hore ugu soo brotherkeygi عبد العزيز نيو هورتا ودنكا الله بباتشو معناها وزيركا هورتا شالي برنامج كان يسوق ليين ورباهينتا دولة يسوق ليين وهورتا خلد وين وكدعي مفهمتي معناها دمركا الصوماليات معهن دمر أو جيركودا أو شغل روسية معهن ما نقولها أنا ما قرأتي وقرتي وأنا كحومة واحد قرالك سيدي وسوق الشين يسيدي عيسلاتك وفل عليين وان دريمي كلا إني أرن علوس إليهاد waxaan ku darsanaa barnaamijka waxa waaye horta meeshan Muqdisho dib badan horta ka jiro ma fahanti xagga dhaqanka iyo xagga oo iyo arimaha mujtamaca saameynta oo ku leh wadanka qaab darro badan ka jirto macnaha caruurtii oo daayirta ahayd balwada badan ay barteen dalkii marka waxa soo galayo iyo waxa oo lagu wadanka ka dhacay qof la socota maba jirto wasaaradda awqaaftii arimaha diinta ee Soomaaliya ay xarunteedu tahay Muqdisho daliil weyn baan u hayaa ma fahanti ani ahaan ma fahanti
waxaa waaye marka haddii jidadkii lagu gadaayo waxyaalihii muqaadaraadka ahaayeen sida taabuugii iyo daroogadii iyo wax walbana waddanka ay kasoo gelayaan dekeda ay kasoo gelayaan micnaha dhib badan ayaa meesha ka jiro marka waxaa loo baahan yahay in dowladda madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo oo mas-uulka ka yahay madaxweynaha ka yahay waa in uu la imaadaa dhaqan wanaagsan ama qof macquul ah oo waxaan wax ka bedeli kara ma garatay waa gartay waa in isbedel lagu sameeyaa wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda arrimaha diinta ee awqaafta maxaa yeelay awqaafta haddii la dhaho wax badana meesha qalad ka jira feri horta waa mahadsan tahay wasaaradda diinta iyo awqaafkana wasiirkeeda nin dhalinyaro waaye waxaan rajeynaa wixii qaladaada inuu sixi doono laakiin maanta waxaan ka hadlayna waxa waaye barnaamijka ku saabsan arinta wasaaradda warfaafinta wasaaradda diinta iyo awqaafta qaladaad haddii ay leedahay ayadana waqtigeeda u imaanaynaa laakiin waxaan rabnaa adiga sidee kuu saameysay warqadii aragtay brotherkeyga brother horta warqadda aan arkay waxay ii saameysay si oo qaabdaran maxaa yeelay ma ahan meesha shaqada loo doonahayo ma ahan meel oo munkar iyo waxyaalahaas lagu kala gada ma fahanteen hollywoodka iyo meelahaas jiti iyo hollywoodka qof shaqo u doontay ma ahan ma fahanteen gabdhaha soomaaliya gabdha asturan oo dhaqankoodii iyo dabeecadoodii iyo wanaagoodii lagu yaqaanay ayay ahaanaya mar walba ma garatay ma ahan in la dhaho waxaa meeshaan shaqo ka heli karto qofka noocyadaas leh tilmaamo noocaas in laga baxsho waa fuduul weyn ma fahamtay oo sumcadan hoos u dhigaysa dumarka ma garatay marka waxaan dhihi lahaa qoladan oo wasaaradda warfaafinta iyo dadkan hadda barnaamijkan falkan oo ka dhacay waa inay raaligelin ka bixiyaan waxaana ku darsan lahay mar dambe yaysan dadkan waxyaalaha qaab noocaan inaysan dadka la qaybsadaan waaba foolxumo weyn ma fahamtay sumcaddooda ha ilaashadaan si wanaagsanna dadka hawla dhaqmaan maxaa yeelay dumarka waa micnaha indhaha nolosha soomaaliya iyo dumarka waa ma fahantay aad iyo aad boqolkiiba sideetan nolosha muqdisho waxay ku taagan tahay dumarka cagahooda ma garatay aad iyo aad waa dareemi kartaa marka haddii oo intii dowladdan intii burburka jiray waxa hadda qoysaska ay ku tiirsan yihiin ay ku taagan yihiin boqolkiiba sideetan dumarka waaye marka yaan loo gafin aan dhihi lahaa inay shay ahaan marka waana qalad weyn oo ka dhacay raaligelin ah ka baxshaan khaasatan wasiirkii qorshaysay arrintan ma garatay waa mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga ana brotherkeyga waa kaaga mahad celinayaa habeen wanaagsan walaa sidoo kale aniga waxaa waajib naga saaran yahay markaa qaladka aragna inaan ka hadalno waxa saxanna inaan ka hadalno ama wasaaradaha dowladda ha noqdaano ama maxaa la yirahdaa ii sheeg laftirkeena dadka nidaamka maxaa la yirahdaa ii sheeg siduu u socdo mucaaradka ku aan noqono insha allah barnaamijka xigo beri dambe noo noqon hadduu ilaa yiraahdo waxaana ka hadlaynaa migrationka Soomaaliya aan ka hadlaynaa iyo waxqabadkooda qof kasta oo wax qabtayna waa ku dhiirigelinaynaa qof kasta oo wax qabtayna waa ku dhiirigelinaynaa qof kasta oo wax fiican qabo waayana waa ku dhaliilaynaa wasaaradda warfaafinta isbedel ay u baahan tahay wasaaradda warfaafinta wasiir dadka hanuuniya u baahan tahay uma baahno wasiir asiga la hanuuniyo maareey asiga u baahan in la hanuuniyo la baro dowladnimada waxay tahay wasaaraddan hore ugu soo shaqeeyay waa ku fashilmay wasaaradda ganacsiga la geeyey waa ku soo fashilmay isla wasaaradda warfaafinta lagu soo celiyey haddana wuu ku fashilmay dowladda waxaan jeclaan lahaa horta dhiiqadeeda inay iskaga jirto maxaa yeelay 7 bilaa u dhiman 7 bilne dhiiqadooda ha iskaga dhex jiraan oo ha noqdaano dad isla yimid oo isla baxo oo xumaantooda ku wada baxo wasiir maarey booskaaga iska sii joog gabdhaha iska siicay hubqaadkooda iska sheeg wasaaraddaada ku amar taagley barnaamijyada ay soo duubayaan sharuurka iska qaataano waxaasoo dhan markaa imaatay ay wasaaradda yimaadeen cabdiraxmaan ibya wasaaraddan soo maray waxaa soo maray fiqiya soo maray waxaa soo maray maxaa la yirahdaa ii sheeg ciilmooga soo maray daahir geela soo maray mustaf dhuxulooba soo maray cabdiraxmaan yariisooba soo maray adigaa 2 jeer soo martay
doctor daahir geelane 2 jeer uu soo mariyay, labadiina min 2 jeeraa soo marteen. inta kaleentoole nin kastaba teeram uu soo hayay uu yimid, laga soo biloobo cabdiqaasin, cabdilaahi yuusuf, dowladdii xasan sheekh iyo tii sheekh shariif, tan hadda maanta intaasayti nimankii soo maray wasaaradda. waxaa anaga markhaati aan ka nahay doctor daahir geelle iyo mustafa dhuxulow shaqadooda inay wasaaradda u darsatay oo loo baahan yahay. mustafa dhuxulowboo kaleentoole, daahir geelloo kaleentoole, oo aanan loo baahnayn qof wasaaradda burburiyo. haddii shaqaalaha wasaaradda hala loo wareysan lahaa, caawa raalli kama noqon lahayn maareey inuu wasaaraddaasiiti wasiir ka sii ahaado oo awaamirtiisa ay ku shaqeeyaan. kulankan kan xigo iyo nooli kulanta insha allah. waa mahadsantihiin. markasta waxaan ku cudur daaranaynaa wixii khataf ama qalad oo barnaamijka intaan ku jirna ka dhacay ma ahayn wax loogu talagalay. wuxuu ahaa wax farsamada ku yimid ama afka uu soo dafay. ma ahan wax loola jeedo shakhsi, koox iyo qolo meel degan. barnaamijkan qofkuu dhaafo wuxuu toos uga daawan karaa barteeda youtube-ka aan ku leeyahay cabdicasiis maxamuud kulmiye official. aada u mahadsantihiin. dumarka waa heybadda dalka iyo dadka Soomaaliyeed.